صح وين سلام عفاد قبين رجيني رمضان كريم وحا ملاينيا إن عفان قبتين دمانتين بيش بركيس نيدي رمضان تونكي هرايان كوبدا جرنا ولي maanta iyo shalay iyo daraad waxaa aada loo hadalhayay oo baraha bulshada si weyn soo dhex marayay madaxweynaha dalka Tanzania Suluhu oo dabcan sheegtay in wiilkeeda ay dharka u dhaqdo cuntadana u kariso ana waxay leedahay xilka aan hayo iyo culayska korkayga saaran kama reebin waajibaadkii gurigayga saaraa iyo ninkayga mana igama reebin marka sheekadeedu mararka qaar waxay kugu soo ridaysaa macnaha ama kugu soo dhacaysa wanaagga iyo qiimaha ay lahaayeen hooyooyinkeen macnaha laakiin dee hadda waqti xaadirkan marxaladda iyo waayaha iyo dunidaba jiilkan way bedeleen macnaha waxaa laga yaabaa gabadhu inaysan ninkeeda dan ka gelin waxaa laga yaabaa inay ihtimaam badan siisiin waxaa laga yaabaa haddana saasay tahay dumarkii macnaha iyaga oo marxaladahaas isbedelka intaa la eg uu ku yimid goor oo ka masiir badan yihiin way ka kul yihiin wax badan isbedela ba dunida guudkeeda dhanka dumarka ka jira marka maamadaas madaxweynaha dalka Tanzania ka ah runtii waxay gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha dunida tustay in wax kasta hayaan ay ka muhiimsan tahay waajibka ka saaran iyada ninkeeda macnaha maadaama ay iyada mas'uul ka tahay waajibka ka saaran uu ka weyn yahay bay tustay qofka dumarka ee intaas oo qof oo bilyan ama milyan mas'uuliyadda ka saaranta haddana halkii qof ee mas'uuliyadda ay ka saarad kama tegin macnaha shaqadeedii macnaha way kumbuleed garaysa dhammaanteed intaa marka laga soo gudbo kasii guud marka fariin weyn waay fariintan fariin caadi ama qiila gabdhaha Soomaaliyeed waa muhiim inaad ogaataan inay mas'uuliyadda idinka saaranta qofka oo inoo sheegin adiga dharkiisa cuntadiisa waxyaabaha isaga dee u gaarka ee labadiina idinka dhexeeya marka macnaha waqti xaadirkan ama sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay furiinada sababa u badanayeen wax kale ma ahayn waxay ahayd isfahamaaga labada qof marka laga soo gudbo ka dhexeeya ama dhex maraya waxa ugu weyn waxaa waaye qofkan dumarka ama mas'uuliyad marka hore iskama saaraysa ninkan gurigiisa kama soo tageen haddii uusan adiga kaa helaynin waxyaabaha daruuriyaadka ay ugu baahan yihiin sidaasee la mida haddii aadan adi dhammaystiri karin waxay ka dhigan tahay dee inuu dooq kale loo sameeyo uu ku qasban yahay ma jirtid sabab uu kaasi ag joogo marka inaadan ogolan haddana in lagaa tago arrin adag marka waxaan dhihi lahaa hablow dee ani ma dhahaayo macnaha waqti xaadirkan ma lihi gabadh hooyadii macnaa hooyadii gabadh kama dambeyn sheeko u eg waay tan laakiin waxaan leeyahay weli waxaa haystaan fursad aad isku bedeli kartaan weli waxaa haystaan fursad aad nolosheenna iyo noloshiinaba ku bedeli kartaan waxaa haysataan fursad aad hadalhaynta baraha bulshada ka jirtan uga bixi kartaan had dumarkii baraha bulshada kaaga horeeyaan xafladihii iyo munaasabadihii kaaga horeeyaan dumarkii hore munaasabada iyo xaflada iyo boodbood iyo waxaas runtii way ka fiicnaayeen mana aqoonin marka si guud waxaan dhihi lahaa gabar mas'uuliyadda ugu weyn ee ugu muhiimsan waxay kaa saarantay ninkaaga waa waxa kaloo dhan wax iska caadiya waay intaan isla fahmay aad baan idin salaamayaa fariin walaalnimo waaye fariin kalgacal waaye fariin aan ugu talagalay macnaha in guryaha Soomaaliyeed kusii dhisnaadaan runtiina waxaa waaye aad waxaan u rajaynayaa in fariintan qaadashada si dhiibli ah loo qaato gabadha iyadoo madaxweynaha ninkeeda dharkiisa iyo cuntadiisa weli meel sii saarta kana fikiraysa weliba haddana kusii faanaysa wax caadi ama aha macnaa waxaa laga yaabaa in 3 bilood ay gasho wax ka badan 5 safar 6 safar laakiin haddana inta ay joogto mas'uuliyad baa sii saaran hawl saaran adigoo laga yaaba inaad wax camal haynin guriga u dhex jiifto oo shaqo aan qabanaynin laga yaabo xataa inaad ilmo u haynin oo dee aad firaaqaaga aad badan yahay haddana haddiiba oo aysan jirin wax kaa mashquuliyo haddana aad mashquulsantay inkaar gubowga marka waan salaamaya waxaan rajaynayaana inaysan taasi dhicin guul baa idin rajaynaya isbeddel nololeed mid caqli mid fikir iyo mid maaragtay horumar leh intaba guulaysa dumarka Soomaaliyeed